السلام عليكم أصحابي قلب وناكسن وعن ولا شيء من أمة الله برنامج كيني رمضان علمتني الآية the آية taught me آية ما تدل استاغنو آية آد وجعلها كجرت سورة هود أن إلهي وحي سبحانه وتعالى على لسان شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب and my success is not but through Allah. Upon him I have relied, and to him I return. آيات aad u macaan weeye. Number one waxay noo diidaysaa naga ilaalinaysaa inaan ka fogaanona ay tahay waxaa la yidhaahdo isla-weynida iyo kibirka. Talabaadna qalbiga inoo dejinaysaa oo sakiina iyo kalsooni bayna siinaysaa. Kelmadahan waxaa yidhi Shucayb calayhi salaam, laakiin wuxuu yidhi Nabi Shucayb kadib markii uu qoomkiisii la hadlay oo waaniyey oo wacdiyey oo wax u sheegay oo la taliyey oo dadaalay oo dadaal aad badan juhdi geliyey kadib buu yidhi markaa wamaa tawfiiqii ilaa billaah annagana muslimiina saasaan ka rabaa adduunkanaan joogno shaqalatna dunya adduunkaana mashquuliyey kan kasbo kan samee kan keen lacag guri waxay doontaba ha noqotee wax kasta dadaal waan la imaanaynaa laakiin wamaa tawfiiqii ilaa billaah baan leenahay tawfiiqda ilaah baa iskale subxaana watacaala dadaalkayga kuma imaan ama maskaxdayda ama planning aan sameeyey ama wax kale laakiin tawfiiqda ilaah baa iskale qofka muslimka markuu taa ogyahayna wuxuu ogyahay wax kasta dadaal kasta iyo plan kasta iyo wax kasta haduu la yimaado wixii uu qorshaystay u hagaagi waayaan alxamdulilah weeye waayo tawfiiqda ilaah baaba iskale hadday u hagaagaana alxamdulilah buu oranayaa ilaah baa waafajiyey marka wax kasta aan sameyna insha allah wamaa tawfiiqii ilaa billaah calayhi tawakaltu wa ilayhi uniib baarak allahu fiikum for listening and insha allah see you next time